بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم دمان أصحابته الله سبحانه وتعالى أيام هذا سكاله إن قال شيء بشي بركة سنيد رمضان. الحمد لله بين الله هاي الحمد لله لا يبقى هذا سكاله سينوكسونا هاي دمانتين بشان وبال khayrkaygu aad u fara badan yahay, fadligayguna aad u fara badan yahay. insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu naga dhow kuwii ka faa'iidaysta. alxamdulilah baynu leenahay. nimcooyinka ilaahay waxaa ka mid ah inuu ina soo gaarsiiyey bishan khayrka badan ee ramadaan. waa nimcooyinka ilaahay. sidaynu ogsoonahay dad fara badan oo inaga mid ah innaga ah ramadaanteedii way nala soomayeen oo sidan oo kale bay noola faraxsanaayeen alxamdulilah 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 lahaayeen saynu maanta u leenahay. laakiin maanta taxta al-ard waxay ku jiraan qubuurahay ku jiraano oo allah subxaanahu watacaala ugu qadarin inay soo gaadhaan ramadaanta maanta. alxamdulilah ilaahay inagana soo gaarsiiyey. fahadihi nicma markaa nimcad baynu ku jirnaa. alxamdulilah aynu nidhaahno. insha allah videogan yar ee kooban waxaan ku talagalay inaan kula hadlo khaasatan dhalinyarta guud ahaana bulshada insha allahu tacaala. ramadaani markay soo gasho waxaa laynooga baahan yahay intayna soo gelin dadaal fara badan, qorshe fara badan, jalwad aynu diyaarsano bishaa ugu talagalnay. koley waxay la tahay in qof walba uu diyaar garoobay intayna u badan. alxamdulilah baynu leenahay. dadka qaari waxa ay ka fikiraan bisha ramadaan sidii ay miskiidadu camiri lahaayeen. alxamdulilah sida ay miskiidadu camiri lahaayeen ee salaada iyo dikriga iyo quraan akhriska iyo cibaadada u badin lahaayeen. hadda sanadkana waynu la soconaayo xaaladii hore ka duwan tahay. waxaa jira cudurro fara badan baa jira. allah naga dulqaado bishan. insha allahu tacaala waxaanu ka rajeynaa ilaahay inaga dhameeyo cudurkaas. isagaana keenay, isagaana qaadi kara. dadka qaar waa dad saas oo cibaadooyinka iyo subciska iyo waxyaabahaas u diyaargaloobaan khayriga iyo sadaqada iyo waa bil barakaysan saynu ognahay. dadka qaarina waxay u diyaar garoobaan ilaahay nagama dhige dad hurdo iyo khamaar iyo ciyaar iyo waxyaaba saaso yacni aanan bishan ku habboonin marka loo eego fadligay leedahay ayay u diyaar garoobaan. guud ahaan waxaynu soo koobno waxaynu noqono kuwa u diyaar garoobo khayrka wanaagsan. haday noqoto quraan akhris, axaadiis dhageysi, miskiid ku xidhnow, haday noqoto sadaqa tijaariya, wax walba insha allahu tacaala aynu noqono kuwa intaa u diyaar garoobo. inaynu noqon sida bulshada dhalinyarteedu u badan tahay, dhalinyarta da-da jiilkayga oo kale iyo waxay maxaynay in yar naga sarreeya. runta marka laysku sheego waxay u badan yihiin dad yacnihii aanan bishaas faa'iidadeeda ogsooneyn. bishan barakaysan waxaa lagu soo aadiyaa waxyaabo fara badan oo waqtiga lagu lumiyo xagga dhalinyarta marka laga hadlayo. waxaa ka mid ah waxyaabahaas in la qabto koobab wax loo yaqaano ama kubad ee la ciyaaro waqtigii yacni bishaa barakaysnayd lagu ridayo. maba xume in la ciyaaro laakiin bishan in lagu soo aadiyana weerar dhib bay leedahay. bilaha kale in la qabtaana way iska fiicnaan laakiin bisha ramadaan lagu eegto waxay la tahay in waqtiga la isku dhaafinayo. dadka qaarna waxay u diyaar garoobayaan inay khamaar ama laadhu ha noqoto ama waxyaabo kaloo khamaar ha noqoto inay bishan isku dhaafiyaan. marka aad weydiisidna ay ku odhanayaan waqtiga ayaynu iskaga dilaynaa. waxaa jira dhalinyar fara badan si u fadhiisato 8 aroornimo laga bilaabaa baasha khamaarka la ciyaarayo oo runtii markaa laska yaryara oo lasoo wada maray ilaa wallahi ugu dhamaynaya maghribka kule maaban dareemin maanta soom maanaaba dareemay maba dareemin. sababtoo ah waxa uu ku lumiyey waqtigii qaaligii uu lahaa bishana ka faa'iidaysa lagu wuxuu ku lumiyey khamaarkaa u ciyaarayo. runtii ma fiicna. dadka qaar ka mid ahayna weliba dhalinyartu ha u badnaata waxay u diyaar garoobaan filimaan iyo gabdhahooda musalsalo xalqado. bishani maaha bishii filimaanta iyo waxyaabaha la daawanay. waa bil aynu rabno in dunuubtii aynu soo xambaarnay 11 bilood kale
aynu soo galnay aynu ilaahay soo caasinay inay naga maydho ilaahay subxaanahu watacaalana aynu ka rajeyno dembiyadaas naga dhaaf bishaa weeyaan in aynu camalada fiican nafteena daalino waxyaaba fiican nafteena ku tababarno weeyaan maaha bishii hurdada maaha bishii khamaarka maaha bishii kubadda maaha bishii filimaanta haynu fahano waa bil barakaysan waa bishii qur-aanka waa bishii sadaqada waa bishii acmaasha fiican aynu qabanaynin يعني هاي نكفى سنة إن شاء الله تعالى بشان بركيسن نفتيد نفتينا وحان كل دردار ما يعبصد إلهي سبحانه وتعالى ملك ستيجونا هين كعبصنه عمل كخير كان إن شاء الله هين أكل برتم هذا يجر بشان وحيابها كلات كفى سن كرتو وحوي إن هذا القرآن أخرس فربنا سميسو أو تشلوت كو صحة سميسو بشان محاد وقلت لك شيء متجر إن القرآن كرميسو طلعوا إمساء حديث أو كتب إن رميسو إمساء أقون جود أما مادي أهات أما ديني أيات كوت تلاقش حنا بشر رميسو يعني بيش محال دونا إن عبادة دا تكداشو العبادة دا وقت بلان عتيسو كداشو إن شاء الله تعالى إنت عيانو قلت لك لإنا فيديو غير قابنا كهدلو مرلبات يمرستحاد الحمد لله إلا إبا محضله إنا سو قارسي الحمد لله cidna inooma damaanad qaadin inaynu maanta ilaa iyo 30 bisha aynu gaadhin dadka qaar waxaa loogu talagalay inay rabadaanta arkaan oo maanta inala farxaan alxamdulilah inay la yidhaahdaan beriyo tolan aynan inala joogin oo qubuuraha loo qaado dadka qaar toddobaadka hore rabadaanta ka arkaan dadka qaar 5 iyo 10 yacni ma ogin xilliga ay nafteena la qaaday haynu ku dadaalno maalinta aynu joogno aad haynu uga faa'iidaysano haynu faa'iido aad u badan aynu sameeyno quraan akhris fara badan dhikri fara badan haynu sameeyno maadaama ma ogin inaynu bisha dhamaysanayno iyo inaynu toddobaad ka joogayno iyo inaynu 2 toddobaad iyo inaynuba hadda hadlayno saacad kadib anu ilaahay subxaanahu wa ta'ala in afsanay ma ogin haynu ka faa'iidaysano insha Allah ta'ala aynu ka faa'iidaysano dhamaanteen muslimiinta meel kasta joogtana waxaan leeyahay ramadaan mubaarak alxamdulilah barstaxaad mar labaad ku celinna ilaahay subxaanahu wa ta'ala ya mahadlina gaarsiiyay insha Allah ta'ala videogan gaaban intaan kaga hadlaynay dhamaantiin ramadaan mubaarak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh